asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waan idiin salaamay dhammaantiin meel waliba joogtaan kusoo dhowaada muuqaalka maanta oo aan idiin soo gudbinaya anigoo ah Cabdulle Macalin Maalto. ma ogtahay in waddanka Iceland uu yahay waddankii ugu horreeyay ee sharci ka dhiga in ilmaha la iska soo ridi karo sanadii 1935. ma ogtahay in madaxweynihii ugu horreeyay ee Soomaaliya inuu ahaa Allah u naxariistay Aadan Cabdulle Cismaan Aadan Cadde, waxaana uu madaxweyne noqday sanadii 1960. ma soo ogtahay inuu noolaa Aadan Cadde intii u dhaxaysay sanadii 1908 ilaa 8 Juun 2007. wuxuuna madaxweyne Aadan Cadde noqday madaxweynihii ugu horreeyay oo Afrikaan ah oo si dimuqraadiyad ah doorasho u qabto xilka madaxtinimadana kaga dega sidaas, iyadoo guud ahaan wadamada Afrika looga bartay xilligaas afgembiyo dhiig ay ku daataan. ma ogtahay in cilmi baaris ay dhowaan si wada jir ah u sameeyeen khubaro ka kala socda jaamacadda University of L'Aquila ee ku taalla dalka Talyaaniga oo kaashanaysa xeeldheerayaal ka socda macadka lagu magacaabo Lipton Institute of Tea ayaa daboolka ka qaaday cabitaanka koob shaah oo oranji ah oo aad cabtaa maalin waliba inuu ka hortago khatarta qaaditaanka cudurrada halista ah oo ay ka mid yihiin cudurrada wadne xanuunka iyo macaanka. ma ogtahay in qur'aanka kariimka lagu sheegay lafdiga addunya 115 jeer? mise ogtahay in qur'aanka kariimka in lagu xusay al-aakhira 115 jeer? balse intaanan u gudagelin barnaamijkeenna, like saar muuqaalkan si uu u gaaro saaxiibo badan, sheer leh oo la wadaag saaxiibadaada si aan u helno saaxiibo u wanaagsan sida adigoo kale. hana hilmaamin inaad follow dhahdo page-keenna, sidoo kalena subscribe dheh YouTube channelkeenna, gambaleelkana furo si aad u heshid barnaamijyada cusub ee aan soo gelinno. mahadsanid. ma ogtahay in masjidkii ugu horreeyay ee islaamka uu yeeshay inuu ahaa masjidka Quba? ma soo ogtahay shaygii ugu horreeyay uu Allah subxaanahu wa tacaala abuuro in ay tahay samada? ma ogtahay in qofkii ugu horreeyay ee qalin wax ku qoray inuu ahaa Nabiyullaahi Idriis, naxariistii nabadgelyo korkiisa ha ahaatee? ma ogtahay inay jiraan 4 ayna hooyo dhalin, waxayna kala yihiin 1 Nabiyullaahi Aadam calayhi salaatu wasalaam, 2 Xaawo oo iyana laga abuuray feerta Nabiyullaahi Aadam, 3 wankii uu gowracay Nabiyullaahi Ismaaciil calayhi salaatu wasalaam, 4 hashii Nebi Saalax calayhi salaatu wasalaam. ma ogtahay in dowladda Carabeed ee uu maro dhulbaraha adduunka inay tahay dowladda Soomaaliya? ma ogtahay in xarfaha luuqadeena Soomaaliga lagu soo koobo weedha ah shiikheenna wiilkiisa curad gabadhuu qabi jiray fooxla'aan ma heesi karto? weedhaas oo kooban sida aan maqlay waxaa sameeyay Allah u naxariistay Abwaan Cabdullaahi Suldaan Timcadde. ma ogtahay in xawayaanka keliya ee 4 jilib leh uu yahay maroodiga? ma ogtahay qaybta keliya ee jidhka ee aan dhiigga gaarin inay tahay qaybta isha ee la yiraahdo cornea, waxayna oksijiinka si toos ah uga qaadataa hawada? ma ogtahay in waddanka Itoobiya la oran jiray waagii hore Abyssinia, hase yeeshee horaantii dagaalkii labaad ee dunida ay la baxday magaca Itoobiya? ma soo ogtahay in waddanka Itoobiya ay ku nool yihiin in ku dhow 50% dad muslimiin ah, in ku dhow 15% ay diilaawayaal yihiin ama ay yihiin dad aaminsan dabeecadda, halka 35% ay yihiin dad Kirishtan ah? hase yeeshee diinta ofishiyaalka waa diinta Kirishtanka, halka afka la isku afgartaa ama iskuullada lagu bartaa uu yahay af Amxaariga.
ma ogtahay in shinnidu maalintii ay dhali karto 800 ilaa 1500 oo beed? mase ogtahay in shinnida boqortooyadeedu ay mid kasta ka kooban tahay 30,000 ilaa 40,000 oo shinni ah? ma ogtahay in dalka Gabon uu noqday dalka ugu keymaha badan Afrika, iyadoo baaxadda dhulka ay keymahaasi ku fadhiyaan ay noqonayaan 84.4%, halka dalka Djibouti uu ka noqonayo dalka ugu yar, keymaha ku yaalana baaxaddooda ay noqonayaan 0.2%. waxaa intaa inoogu eg warbixinteennii oo aan idiin soo gudbinaya anigoo ah Cabdiweli Macalin Alto. haddaba haddii aad ka heshay muuqaalkan, fadlan like saar, subscribe-na dheh adigoo gambaleelka furanaya si aad u heshid muuqaalada cusub ee aan soo gelina. hana hilmaamin inaad asxaabtaada la wadaagtid adigoo sheer garanaya muuqaalkan. mahadsanid.